kulankan muqdisho maanta ay ku yeesheen qaar ka mid ah jaaliyada oromada ee deegaanka caasimadda muqdisho waxay uga hadlayeen isla markaana ay dareenkooda ku muujinayeen wiil oromo ah oo ay sheegeen in Puntland ay ku dishay magaalada Gaalkacyo waa sida ay hadalka u dhigeen haddaba qaar ka mid ah dadkii oromada ee ka soo qayb galay kulanka hadaladii ay ka jeediyeen waxa ka mid ahaa wiilkan waa wiil dhalinyaro ah wuxuu ku dhashay magaalada Qoryooley ex Oromo u dhashay laakiin waa nin Soomaali ah Qoryooley ku dhashay magaalada Gaalkacyo shaqo u tagay hotel ay leeyihiin buu ka shaqeynay qofka hal la dilo dilmada kama xuman inta la qaado 15 kiiloomitir magaalada inta laga bixiyay la dilay in la meed jiido midaas waa mid annagana damqisay su'aasha taagan waxay tahay annagu Soomaaliya dal deris ayaan la nahay derisanahay dad isku dhiiganahay dad isku dhaqanaanahay dad islaam oo tawxiidka islaamka wadaaganna waxaan aad u xasuustay oo qalbigay ku soo dhacday Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan kuwii uu inta kala carray waxay degayn masla meel la yiraahdo gobolka Baali ku taalo ayagoo magacoodii aan laga bedelin harti ah ay beerahoodii waxa dadkeenu aysan haysan ay haystaan guriyo bun ay beeraha haystaan magacoodii hartina waa qaban gabdhoodiina waa guursanay kuwanina waa siinay nin garabka u saaran yahay marka ay leeyihiin waa wax lala yaab wax ajiib ah nin mas'uul sheeganayo wasiira ay habeen dhaweeto wuxuu lahaa qof Oromo ah guri kama kireen kartaan shaqa ma siin kartaan maanta wuu idin la loo bari waa idin dilaya bal taariikhda horta intaan xasuusto qof dad Oromo dil lagu ma ogeyn dad nabadeeda lagu ogaa isi akasiisan tarkaan fi silaahin barbaachifne gurbaata qorrati oo doohintayn ummata Oromo ka akareefu dhibaatadaas maanta kaligiisa ma ahaane dadkii ugu horeeyay sidii walaalkayga sheegay ee bomba inta lagu xiro lagu dilo kale baaba inta doonta lagu qaado biyo lagu daadiyo qaarna baabuur inta laga daadiyo baabuur la marsiyo ee dhacday Axmed Cumar Sheekh Nuur Hon Cable TV magaalada